intaasoo ciidan oo fayshan caaw ma idinla tahay ciyaalla xuxuna oo alkulistayaala cabtow iyo rooberi in magaalada aan ka sifayn kari weyne waxa weeyaan waa la shaqaynaya waxaa la yidhi boolisku meesha xabaddu ka dhacdo waxaa la yidhi dib bay uga soo noqdaanay hadda waa la raadgoobaya sharqan xabadeed meesha ka yeedho waa lagu dareeraya meeshaasaa la aadaya waa la xaqiijinayaa ilaa qorigaa iyo cidda wata gacanta lagu dhigo laga soo noqon mayo wixii ummadda dadkii waa seexan waayeen gurihii waa la hurdi waayey maatadii habrihii odayaashii culimmadii ganacsatadii waa la joogi waayey waxaa saa u gelaya mataqaan wuxuu yahay waa qof xarig rabbina gooyey salaad aan tukanayn ilaahay aan aqoon khamri iyo xashiish ka dhargay weeye ciidamada magaalada soo galayo xagga wax ka jira ma jiraanin halkaa ciidamada magaalada soo degay iyo cidna kama timaado dad dhintay oo magaalada khamrida ku cabba iyo kuwa ka ganacsanaya baa waxay rabaan magaalada inay fawdo iyo arbish ka sameeyaan loo dulqaadan mayo cagta waa in la mariya xabad meeshii leeyahay waa la tagayaa gacanta lagu soo dhigaya habeen dhowtani baantu inji halka inji la tagay muska faraq wax uu ku ridayay iyo cid la diriyay midna ma jirin waska ridaya ba xiraya hada sheeladu ku jira kiis kale soo galay buu xiraya kaasna waa loogu daraya qof kasta oo faldambiyad ka gala markiiba dhacdada la helo oo biga lagu qoriyo waa laga hawlgelaya meeshu galay waa loogu dabagelaya waxaan leenahay dadka ku hawlan waxyaabaha anshax darrada inta hadeertaan aad jaaniskaas ka waantooba war iska daayay war khamrida daayay war qoriga kan aan la ordaysaan oo xaq iyo xoolada ka maqlaan ku dooneen daayay hooyooyinkiin iyo habriin iyo guriyiin baa soo leysateen mujtamacii iyo muslimkii islaamka oo dhan baa u soo dhigateen layda ku dulqaadan maayo mana layda ku fiirsanayo tilaaba la ka qaadiyaa tilaaba sharciga waafaqsan annaguna shaqada ilaahay baan ugu dhawaanaynaa waajib nasaaran baan u gudanaynaa inaan ku dhimanaa diyaar baan u waxa ummadda dhibayana ummadda ka hor loo ku dilana diyaar baan u sacba iyo barya kaga soo qaadamayno qoryaha ku loo ordayo ummadda ku weerariyo ku dhibay odayaasha iyo nabadoonna waxaan leeyahay hadeertaan fitata dhacaysa waa u jeedaan nimaan wiilkiisa war ka hayn ma jiro hadeer qabsada waxaad dan kale leedihiin hadeer gacmaha ku dhaga qoryahana ka qaata guriyiinna ku anshaxa laakiin annagu magaaladaas aanu ka shaqaynaynaa cagtaa la marinaya ilaa waagu baryayo lug iyo socod baa lagu soconaya amniga magaalada caasimadda garwana waa la xaqiijinaya waa la gaaraya xaq iyo baadil ma sinna magaalada tan waa magaaladeennii dadka ku nool waa dadkeennii deegaankeenni weeye waxaa layna ka rabaa si ikhlaas ah oo niyada oo daacad xalaal u shaqeeyo askari hadduu jiray war gudbiya dee munaafiq baa taa ruufiyaana baa la soo maqayaa caawi habeen dambe carar dheh weligayaba dayn mayno moobilada kuwa aan noqono moobilada waa baarayn inta fitata magaalada ka wada hal askari oo la xiriir haddii la tilaabo sharciga laga qaaday maxkamad baa lagu horgeynaya askari goob jiri ama mooryaan xuna oo qurmay waxa bad ka riday kii dib uga noqdana sidoo kale maxkamad baa la marinaya waa la xukumaya xukun baa lagu ridaya yaa ka geesisan yaa ka awood badan yaa ka rasaas badan yaa ka hub badan laba hadday meel ku jidho 15 baan u dirnaa marka wiil ahay aan horgelinay magaalada tan intii la soo laalaaban kara la laalaabay amnigeeda waa la xaqiijinaya dhalinyarada waxaan leeyahay horta khamrida cabideeda iska daay waa wax ilaahay ka xaraamtinimay iska daa salaada ilaahayna tuko rabbigayna u toobadkeen hadaan dayn oo asaa ku jidin qorina ku dadid inaad adigu gacan ku dhiilan noqotid oo walaalaha iyo saaxiibada iyo hadba mid aad ku qarxisid ama gacan dawladeed lagu dilo labadaas midkood baa ku dambeynaysa
intee arki jidheen dhalinyaro ayo liyaado maxaa laga rabaa hebel loo cayrsanaya gacan ku dhiilayaal marka daba gacan ku dhiil noqonaya asaga meetis soo qaadaya nashidada taa weey waaridka daba ordaya intuu xiran yahay oo xafidan yahay oo salaada tukanayo oo ilaahay baryayo xabsiga kugu jira dan kugu jira u deyso waxa tiraadaan dawladda xukunka ha lagu adkeeyo 10 iyo 20 iyo 15 ha lagu dhufto saa dhahay dantiisa ku jira saasuu adna wuxuu kugu noqonayaa sadaqa tujaari salaad tukado qaybta Allah salaad tukado mid la mid Allah laakiin faatir magaalada khamri ka cabiyo gabdhaha kufsanaya oo dadka furanaya oo ummadda argagax ku ridaya adna cuquba iyo dhibaato kula jooga khayr iyo jaab dhib iyo maqsad buu ku keenay haddana shaqadaynu galayna hadii rabbi idin ka dhigo waxa la rabaa waajibaad cad oo shaqo weyn Allah laab lahayn ka soo laabasho iyo waa daba jooga iyo xaq ka dusay iyo ma jido wax cad oo sax yoolka si toos ah loo tagaya meesha wax lagu shaar tagaya hebel inta loo baahay ila cadda ka sheegana magacyada marka la soo qabto loo waa ka kii waa soo qonay wajigiisina waa laga bilaabo caawa shaqadu halkaas inoo joogaysa waa say inuu ku bilaamatay magaalada tan caasimadda amniga waa la xaqiijinaya gacanta lagu dhigay insha Allah billaah taala waxaan leeyahay kii wax isu qabowna oo ay caagadu been u sheegtayo waxa taa adeer waa laga sii hayay u soo diyaar garow haddii aan rabbi khaasmo waxba kula doonin waxa kan tuuro ka carro masaajidka gal intaas oo ciidan oo fayshan caaw ma idin la tahay ciyaal xuxuna oo alkulistayaal abtow iyo robbery in magaalada ka sifayn kari weyn maya waxa weeyaan waa la shaqeynaya waxa la yiri boolisku meesha xabadu ka dhacdo waxa la yiri dib uga soo noqdaan hadda waa la raad goobaya shaqada xabada meesha ka yeedho waa lagu dareeraya meesha salaadaya waa la xaqiijinaya ilaa qoriga ay cid wata gacanta lagu dhigo laga soo noqon wixii ummadda dadkii waa seexan waayeen guriyii waa la hurdi waay maatadii habrihii odayaashii culimadii ganacsatadii waa la joogi waay waxa saa u galaya mataqaan wuxuu yahay waa qof xarig rabbina gooyay salaad aan tukanayn ilaahay aan aqoon khamri iyo xashiish ka dhargay weey ciidamada magaalada soo galay wax ka jira ma jiraan halka ciidamada magaalada soo degay iyo cidna kaba timaado dad dhintay oo magaalada khamriga ku cabba iyo kuwa ka ganacsanaya baa waxay rabaan magaalada inay fawdo iyo arbish ka sameeyaan loo dulqaadan maayo agta waa in la mariya xabad meesha leeyahay waa la tagayaa gacanta lagu soo dhigaya habeen dhowtani baantu halka injida tagay muska faraq wax uu ku ridayay iyo cid la diriyay midna ma jirin waska ridaya waxraya hada sheeradu ku jira kiis kale soo galay buu xulaya kaasna waa loogu diraya qof kasta oo faldambiyad ka gala markiiba dhacdada la helo oo biga lagu qoriyo waa laga hawlgalaya meeshu galay waa loogu dabagalaya waxaan leenahay dadka ku hawlan waxyaabaha anshax darrada inta hadeertaan aad jaaniskaas ka waantoob war iska daay war khamrida daay war qoriga kan aan la ordaysaan oo xaq iyo xoolada ka maqlaan ku dooneen daay hooyooyinkiin iyo habrihiin iyo gurihiin waa soo leysateen mujtamacii iyo muslimkii islaamku dhan ba u soo dhigateen layda ku dulqaadan maayo mana layda ku fiirsanayo tilaaba la ka qaadiyaa tilaaba sharciga waafaqsan annaguna shaqada ilaahay baan ugu dhawaanaynaa waajib na saaran baan gudanaynaa inaan ku dhimanna diyaar baan u nahay waxa ummadda dhibayana ummadda ka hor loo ku dilana diyaar baan u nahay sacba iyo barya kaga soo qaadamayno qoryaha ku la ordayo ummadda ku wiiriyo ku dhibay odayaasha iyo nabadoonna waxaan leeyahay hadeertaan fitata dhacaysa waa u jeedaan nimaan wiilkiisa warka hayn ma jiro hadeer qabsada waxa dan kale leeyihiin hadeer gacmaha ku dhaga qoryahana ka qaata guriyeena ku anshax laakiin annagu magaaladaas aanu ka shaqaynaynaa agta la marinaya ilaa waagu baryayo
lug iyo socod baa lagu soconaya amniga magaalada caasimadda Garwana waa la xaqiijinaya waa la gaaraya xaq iyo baadil ma sinna magaalada tan waa magaaladeennii dadka ku nool waa dadkeennii deegaankeenni weeye waxaa la ka rabaa si ikhlaas ah oo niyad oo daacad xaalan u shaqeeyo askari hadduu jiray war gudbiya dee munaafiq baa taa ruufiyaana baa la soo maqaya caawi habeen dambe carar dheh weligeey badayn mayno moobilada kuwa aan noqono moobilada waa baareen inta fitata magaalada ka wada hal askari oo la xiriir hadii la tilaabo sharci laga qaaday maxkamad baa lagu horgeynaya askari goob jiri ama mooriyaan xuna oo qurmay waxbad ka riday kii dib uga noqdana sidoo kale maxkamad baa la marinay waa la xukumaya xukun baa lagu riday yaa ka geesisan yaa ka awood badan yaa ka rasaas badan yaa ka hub badan laba hadday meel ku jidho 15 baan u dirnaa marka uu yahay aan horgelin magaalada tan intii la soo laalaaban kara la laalaabay amnigeeda waa la xaqiijinaya dhalinyarada waxaan leeyahay horta khamriga cabidida iska daay waa wax ilaahay ka xaraamtinabay iska daa salaada ilaahayna tuko rabbigayna u toobadkeen haddaadan dayn oo asaa ku jidhin qorina ku dadhid inaad adigu gacan ku dhiilan noqotid oo walaalaha iyo saaxiibada iyo hadba mid aan ku qarxisid ama gacan dawladeed lagu dilo labadaas midkood baa ku dambeynaysa intee arki jidheen dhalinyaro ayo liyaado maxaa laga rabaa hebel loo cayrsanaya gacan ku dhiilayaal marka dambe gacan ku dhiil noqonaya asaga meetis soo qaadaya nashidada taa weey waaridka daba ordaya intuu xiran yahay oo xafidan yahay oo salaada tukanayo oo ilaahay baryayo xabsiga kugu jaadan dan kugu jida u deyso waxa tiraadaan dawladda xukunka ha lagu adkeeyo 10 iyo 20 iyo 15 ha lagu dhufto saa dhahay dantiisa ku jida saasuu adna wuxuu kugu noqonayaa sadaqa tujaari salaad tukado qaybta Allah salaad tukado mid la mid Allah laakiin faatir magaalada khamri ka cabiyo gabdhaha kufsanaya oo dadka furanaya oo ummadda argagax ku ridaya adna cuquba iyo dhibaato kula jooga khayr iyo jaago dhib iyo maqsad buu ku keenay haddana shaqadaynu galayna hadii rabbi idin ka dhigo waxa la rabaa waajibaad cad oo shaqo weyn Allah laab lahayn ka soo laabasho iyo waa daba jooga iyo xaq ka dusay iyo ma jido wax cad oo sax yoolka si toos ah loo tagaya meesha wax lagu shaar tagaya hebel inta loo baahay ila cadda ka sheegana magacyada marka la soo qabto loo yaa waa ka kii waa soo qonay wajigiisina waa ka laga bilaabo caawa shaqadu halkaas inoo joogaysa waa say inuu ku bilaamatay magaalada tan caasimadda amniga waa la xaqiijinaya gacanta lagu dhigayo insha Allah billaah taala waxaan leeyahay kii wax isu qabowna oo ay caagadu been u sheegtay waxa taa adeer waa laga siiyay u soo diyaar garow haddii aan rabbi khaasmo waxba kula doonin waxa kan tuuro ka carro masaajidka gal